habeen wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbaca ah bisha juun waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah axmed cali sheekh. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah sida ay fatahaadihii dhowaan dhacay u saameeyeen beeraha. biibaxadu waxay soo qaadaysaa nooc ka mida meeshii ay ka imaatay waxaa jiro cawsas aan inta laga helin abuurkooda halkaas ka soo qaadaysaa intay keenaysaa abuurkiina wuxuu suuragalka hadhow u noqonaysa markii uu carradan helo iyo biyahan isku helo inuu inta ka soo baxo. sidaas darteed marka hadhow waxay noqonaysaa beerihii aad ku taqeenay inuusan caws badan ka soo dhalanin. biibaxada markii laga soo laabto 2 ilaa 3 bilood oo kale wuxuu ku sababayaa caqabad caws fara badan oo xitaa gobolka aan laga aqoonin oo ku arkaysa. waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan gacanqabashada dadka qaba xanuunada dhimirka ee magaalada Hargeysa. waxaan sameeyaa dadkan u shaqeeya waa dadka dhimirka qaba ee ku dayacan gidaarada Hargeysa oo ciidda ka badan imika soo batay. marka hawshan qabta biyaan siiya yar raashin oo rabadaan tamaale waxa weeyaan meelay wax ka cuni jireen baa xiran runtii. marka hambooyinkii suuqa ka xaabi jireen ilaahayna arrinkaas ilaahay baa igu laamay alxamdulillah rabbil caalamiin. barnaamijkii qoyska iyo haweenka xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku yidhi, hadda ayaan soo degay safar dheer ayuu ahaa, balse qof kasta hadda waxa uu dareemayaa amni ka badan kii maalintii aan xafiiska la wareegay. isagoo intaasi sii raaciyay madaxweyne Donald Trump in kulankii uu la yeeshay Kim Jong-un uu ahaa mid xiise leh islamarkaana ay ku dugnayd khibradda dhanka wanaagga Kuuriyada Waqooyina ay mustaqbal weyn leedahay. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa kulankii ay isaga iyo madaxweyne Donald Trump ku wada yeesheen dalka Singapore ku aqbalay salaasadii in guud ahaan gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka, iyadoo Donald Trumpna uu si lama filaana u sheegay inuu joojinayo dhoolatuska militari ee ay wada sameynayeen Kuuriyada Koonfureed. dukumentiga ay labadan hogaamiye kala saxiixdeen ayaan wadan wax faahfaahin ah oo ku aadan sida iyo weliba goorta Kuuriyada Waqooyi ay burburinayso hubka nukliyeerka iyo nooca damaanad qaadka ammaan ee Mareykanku u fidin doono dalkaasi. isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee taageeraya dowladda dibadjoogga ah ee dalka Yemen ayaa maanta bilaabay weerar ka dhan ah magaalo xeebeedka muhiimka ah ee Xudayda. mucaaradka Xuutiyiinta ayaa maamula magaalada Xudayda iyo sidoo kale magaalada caasimadda ah ee Sanca. dowladda Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga ayaa sheegtay in maanta ay ku ekeed waqtigii loo qabtay in Xuutiyiintu ay uga baxaan magaaladan dekedda leh. Xudayda waa magaalo muhiim u ah cunnada iyo gargaarka la geeyo dalka Yemen, waxaana gudaha iyo hareeraha magaaladaasi ku nool dad gaaraya 600,000 oo qof. dowladda dibadjoogga ah ee dalka Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in qabashada magaalada Xudayda ay muhiim u tahay dowladda Yemen in ay guud ahaan gacanta ku dhigto maamulka dalkaasi. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 3 sano ee uu socday dagaalka Yemen lagu dilay dad gaaraya 10,000 oo qof oo badankood ku dhintay duqeymaha ay fuliyaan isbahaysiga Sacuudiga. Talyaaniga ayaa safiirka Faransiiska dalkaasi u jooga u gudbiyey waraaq ay kaga jawaabayaan faallow madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka bixiyey diidmadii Talyaaniga ee ahayd inay dalkooda ku soo xidhaan 100 muhaajiriin ah oo la soo badbaadiyey. madaxweyne Macron ayaa sheegay in Talyaaniga laga rabay in iyagoo eegaya sharciga caalamiga ah ay aqbalaan muhaajiriintaas oo badankoodu ka yimid dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika. wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in Faransiisku iyaguba ay qaataan muhaajiriin badan, islamarkaana madaxweynaha Faransiiska ay tahay inuu hadalka ficil u bedelo. murankan ayaa muujinaya xiisad ka dhex taagan dalalka midowda Yurub oo ku aadan sida ay u waajahayaan dhibaatada dadka muhaajiriinta ah
iyadoo talyaaniguna uu 5 sano ee lasoo dhaafay qaatay in ka badan 640,000 oo ah dad muhaajiriina halka dalalka kale ee midooda Yurub ee talyaaniga ku diideen in ay aqbalaan dad muhaajiriina. dalalka Maraykanka, Canada iyo Mexico ayaa si wadajir ah ugu guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 kadib codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka oo beri uu ka furmayo koobka adduunka. saddexdan dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ah kan keliya ee la loolamayay. waxa ay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirada dunida ee doorashada maanta sameeyey, halka Morocco ay ka heshay 65 cod. koobka kubadda cagta adduunka 2026 ayaa waxaa markii ugu horreysay ka qaybgali doona 48 dal, halka iminka ay ka qaybgalaan 32 dal. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ammaanay go'aanka FIFA ay martigelinta koobka ugu abaalmarisay Maraykanka, Canada iyo Mexico. waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee koobkan lagu qabto dalka Maraykanka tan iyo sanadii 1994. fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. haatana Hargeysa. waqtiyada ramadaanka dadka qaba xanuunada dhimirku waxay caqabad kala kulmaan inay helaan goobo ay wax ka cunaan, iyadoo makhaayadaha wax laga cunana la xidho, taasi oo keenta in kuwooda aan dagaalami jirin ay dadka waxyeeleeyaan marka ay gaajoodaan. haddaba Maxamed Xuseen Jagac waa qurba jooga dalka dib ugu soo noqday, waxaana uu suuqyada magaalada Hargeysa dadka maskaxda ka xanuunsanaya ugu qaybiyaa raashin bisil, biyo iyo caano. wariyaha VOAda Barkad Maxamuud Kaariye ayaa kula kulmay magaalada Hargeysa islamarkaana uga warramay caawimadaasi uu sameeyo. waxaan sameeyaa dadkan u shaqeeya waa dadka dhimirka qaba ee ku dayacan gidaarada Hargeysa oo ciidda ka badan iminka soo batay. marka hawshan qabtaa biyaan siiyaa iyo raashin waa rabadaanta maale waxa weeyaan meelay wax ka cuni jireen baa xidhan runtii. marka hambooyinkii suuqa ka xaabi jireen, ilaahayna arrinkaas ilaahay baa igu ilhaamiyey alxamdulilah rabbil caalamiin. iminka waxaynu kulannay adigoo u qaybinaya qaarkood dad xanuunsanayo xagga xanuunka maskaxda qaba oo derbiyada fadhiya. waxaad iiga warantaa muddo intee leeg baad hawshan wadday? waxaan waday runtii 7 sannadood iminka. 10 sannadood waan ka fikiri ayaan 10 sannadood ka fikiri runtii. waan anoo joogo qurbaha ayaan jirnay bal waddanka dadka masaakiinta ah hadday soo gasho rabadaan tol maxaa la yeeli. runtii iminka 7 sannadood baan ka waday. intee leeg baad maalintii gaadhaa dadkan amaad gaadhsiisaa cunto iyo cabitaan? runtii waxaa gaadhsiiyaa 100 maalintii. iminka waa rawaxaya marno iminka gaarigii u buuxo dalkasta. marka dadkan wuxuu baahan in la caawiyo. iminka lacag baan ku sitaa, inan baan halkan iminka ku sii doonaa, inantaas lacagta waxbaan ka siinayaa, waan ciidsiinayaa. dad baana weliba khayrkaa soo baxsaday. muddada intaasoo sannadeed wadday hawsha iyo tan maanta aad waddaba, dhaqaalaha ma waxaad jeebkaa ka bixisaa mise ciid kale ayaad wakiil ka tahay oo muxsiniin kale iyo dad kalead ka soo qaadaa? may anu cidna wakiil kama ahi, anaa jeebkayga ka baxsada. run ahaantii qofkii miidiya ku arkaanba markuu arko telefoonkaygana sadaqad baan ku darsanaa bay dhahdaa. iminka inan joogtay Maraykan iyo inan kale waxay dhahaan $200 ayaanu haynaa. ma fahantay way soo direen. ma fahantay cid kale wax ku dirsanaysaa waa ayaami khayrka lahaa. rasuulullah nabiyullah maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khayrka uu dheereeyo dabaysu uga dheereen jiray. waxa la dhammaan ummadda muslimiinta muxsiniinta dadka wanaagsan walaalayaal khayrka rasuulku uu yiri dabaysu uga dheereen jiray. nin walba dadku waa dadkeenii khayrka u dheereeya, waa in loo dadaalaa, waa in dadkan la caawiyaa. waxaa jira dad iyagu cusbitaalada jiifa, waxaa jira dad iyagu meelaha dadka dhimirka xanuunada dhimirka qaba ku xidhan yihiin. maxaad adu gaar ugu doorbida dadka suuqyada ama gidaarada fadhiya? waxaan uga doorbiday niyow dadka waa kuwa dadkoodu waxa weeye waa dad wax haysta, meelaha la geeyaan waa lacag iminka ganacsi bay noqotay Hargeyso. isagta waxaan u doorbiday dadkan cidna ma leh ilaah aan ahayn, dadka lahaa inuu xilligeena waa inaka. ma fahantay taan u doorbiday dadkan way dayacayn, waa dad aan cid ogeyn, ilaahay igu ilhaamiyey. waxaa leeyahay xukuumad, shacbi, maalqabeen, wadaad maca kuwina cilaashada furtayo waa dadkaa la soo gargaaro. dadkan maanta baahi u baahanay. baaraka allah fiikum. Maxamed Xuseen Jagac oo ah nin qurba jooga oo magaalada Hargeysa dadka xanuunada dhimirka qaba ku siiya raashin bisil, biyo iyo caano, waxaana uu warramayay wariyahayaga Barkad Maxamuud Kaariye. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta wareegto uu soo saaray waxa uu xilka kaga qaaday agaasimayaashii hay-adda sirdoonka BIA Cabdirasaaq Ciise Xuseen Khaatumo
iyo agaasimihii guud ee hay-adda kale ee amniga cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi ule. haddaba haaruun macruuf ayaa arrintan ka wareystay cabdirasaaq ciise xuseen khaatumo agaasimaha b i a ee xilka laga qaaday. waxa weeye anigu wax waraaqa ima soo gaarin, laakiin meeriyada baan ku arkay. kadibna markaan meeriyada ku arkay aniga ayaa madaxtooyada la sameeyey xiriir, waana laga cadeeyey in xilkan laga qaado. laakiin xafiiska madaxweynuhu intaan go-aankani soo bixin ma kula soo xiriireen, ma kuu sharaxeen sababaha iyo in xilka laga qaadayo? maya ima soo gaarin, aniguna dee madaxtooyada ma tegin. maxay tahay wax fariino oo soo gaartayna ma jirin ilaa aan ka arkay meeriyaha. wax aad tuhunsan tahay in xilka lagaaga qaaday? kolleyba dee madaxweynaha dalku xilkan isagaa ii magacaabay, haddana isagaa iga qaaday. waxaana dhici karta haddee qofku waa la dhaliili karaa, in xilkayga laygu dhaliilana waa wax dhici karta. de anigu se kolleyba wax hadda aan ogahay oo 1 iyo 2 aan ku oranayo ma jirto, laakiin dalku hogaamiyuu leeyahay, hogaamiyuna sidii markaa ula qumunaata uu shaqadiisa u qabsanaya. waa gartay. marka go-aankan hadda ma aqbashay madaxtooyada markaad la hadashay, ma u sheegta inaad aqbalayso iyo in kale? anigu Joyce Mary waxa weeye madaxweyne dalka waa madaxweyne Cabdiweli weeye, isagaa xilkan ii magacaabay. hadduu iga qaadan anigu Joyce Mary aan ina aqbalo maahay, mid kale Mary magan. waa gartay. adiga shaqadaad qabatay seed u qiimeyn lahayd? marka loo eego haarunow, agabka aanu haysanay iyo maxay tahay duruufta aan ku shaqaynaynay, aniga waxay ila tahay sidii ugu bilayd ama maximum oo aan dadaalka ugu badnayd oo aan samayn karnay inaanu samaynay baan aaminsanahay. sanadkii ugu dambeeyey oo kale culaysyo dhinaca amniga ayaa soo wajahay puntland, oo ay ka mid tahay dhaqdhaqaaq sii xoogaysto al-shabaab, daacish oo iyaguna dhaqdhaqaaq samaynayey, weeraro culus oo al-shabaab ay ku qaaday saldhigyo ciidamada puntland oo kale, kii af urur oo kale, kii bishii hore dhacay oo kale. ma kula tahay inay weeraradaasi ka yimaadeen daciifnimo dhinaca sirdoonka? ma oran karno 100%, waayo waxa weerarada caynkana iyo kuwa ka culusba waxay ka dhacaan Soomaaliya oo dhan. cadowgan argagixisaduna waxa weeye Soomaaliya oo dhan buu ka sameeyaa bulshadaha noocan oo kala. wixii aan muddo aadanaa oo tabartayada ahaa waan qabanay, dowladuna waa og tahay. balse hadda waad ka dareemi kartaa Soomaaliya ama duruufta hadda ay ku jirto dhaqaale, marka waa laga yaabaa inay gobolada iska yimaadaan. laakiin Haarunow waxaan ku sheegi karaa in agabka aanu helaynay in ka badan qabanay baan aaminsanahay. hay-adaha amniga iyo hay-adaha sirdoonka wadanka wax badan ay qabtaan, waxba lagama oga, sababtoo ah nooca iyo qaabka shaqadooda. maxaad ku guulaysateen, maxaad ku guuldaraysateen, maxaa idinka maqan, maxaad haysataan? waxa weeye annaga inta badan shaqadaasaan qabanay iyo taasaan qabanay, sida aad u sheegtayba maxay tahay idaacadaha kama aanu sheegi jirin, haddana ka sheegi mayno. laakiin wax badan baanu qabanay, waxayna ka markhaanti kacaysaa yacnaha amniga waddanka. number 1 ilaahay baa keenay, number 2 waxa weeye dadaalka iyo fortiska annaga iyo ciidamada qalabka sidaba aawadeen ayaa waxa weeye amnigaas intaas waddanku uu ku ceyshayo oo lagu dhaqaaqayo lagu joogteeyey. wayna jiraan tabashooyin la tabanayo oo ay ka mid tahay dhaqaalaha dalka oo hooseeya, waana garan kartaa business noocan oo kala wuxuu u baahan yahay. marka way jirtaa dhinacaas tabaryari dhaqaale oo dee Soomaaliya aan kala mid nahay. tan kaleeto oo dagaalka argagixisada markii loo eego Puntland number 1 bay ka ahayd, wayna ka horeysay maxay tahay qaybaha kale ee Soomaaliya. taasna waxa weeye waa dadaalka iyo isku duubnida dadka shacabka iyo ciidamada Puntland oo u dhabar adeegay, iyo dee servicekayga oo kaleeto iyaguna ka qayb qaadanayo qayb mugle ka qaadanayo. xiriirka wada shaqaynta ee laamaha amniga ee federaalka iyo heer gobol, gaar ahaan Puntland, sidoo ah xiriirkiina markay noqoto macluumaad, markay noqoto wax isweydaarsi, markay noqoto tasiilaad? sida aad la socoto Haarunow, hay-adaha noocan oo kale ah weliba dhinaca Soomaaliyada weyn federaalka waxa weeye inta badan waxaa ka jira isbedel oo qofka booska directorka jooga isagoo aan meeshiiba fahmin ayaa qof kale la keenayay. waan isku daynay dhowr jeer inaanu xiriir samayno, ama rag bilaabay oo directoradii hore oo xiriir fiican bilaabay way jireen, inkastoo uusan noqon mid sii waara oo durbadiiba la bedelayay. haddana waxa weeye iyadoo dadaalkaas aan wadno oo anagu dhinacayaga ka wadno ayaysan weli hirgelin, waayo isbedelka ayaa aada u badan oo qofkii meesha xilkaa la keenaaba isagoo aan bila joogin oo laba qabsanto xataa dee wixii ka jiray xafiiska ayaa qof kale la keenaya. marka iyadoo ay jirto dhaqaale yari, iyadoo ay jirto federaalka iyo hay-adihii steedyada oo aan weli si fiican isugu xirmin, haddana waxa siyaada ku ah habkan nidaamkan la bedelayo qofka madaxa hay-adda ka ah baa isaguna waxay noqotay in shaqadii isku xirnaanta gobolada iyo hay-adaha federaaliga inay udiyaanto. kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq ciise xuseen khaatumo, agaasimaha hay-adda b i a puntland ee maanta xilka laga qaaday oo u waramayey haaruun macruuf.
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinahay in aanu la xiriirno dhinaca maamulka puntland welina aysan noo suurtagelin in aan ku helno qadka teleefonkaasi iyaguna ay uga hadlaan xilka qaadista uu maanta sameeyey madaxweyne cabdiweli gaas. haatan aynu dhegeystayaal eegno dhinaca iyo gobolka hiiraan. fatahaadihii ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada uu maro webiga shabeelle waxa ay saameyn dhaqaale oo mustaqbalka dhow iyo weliba midka fogba ay ku reebtay wax soo saarkii beeraha. fatahaadu waxa ay sidoo kale dileen geed midhoodkii aan looga baran inay si fudud u go'aan ama ay u baaba'aan. haddaba guud ahaan aafada ay fatahaaduhu reebeen waxaa wariyaha v o eda ee gobolka hiiraan uga warramay cabdixakiin cumar yuusuf oo ah aqoon dhinaca beeraha u leh. khasaare fara badan ayay geysatay ka xilli ahaan xilliga uu kusoo aaday ay kusoo aaday fatahaadda oo ay ahayd xilli ay dadka beeralayda oo gobolka oo dhan ay ku howlanaayeen ama ay isku diyaariyeen ama ay ka shaqaynayeen soo saarista dalagyada kala duwan haddii ahaa laheeday kuwa loo yaqaano cash cropeska ama fruits kuwa loo yaqaano. biibaxadu waxay geysatay khasaarooyinka ugu badan geedmiroodyo badan oo muddo badan waqti badan maxay ahayd juhdi lagu soo bixinayay oo maxay ahayd leenta ka mid tahay oo mooska ka mid tahay oo babayga ka mid yahay ayay dadkii ka dishay. geeda aan horey loogu baran biibaxadu inay disho sababtoo ah meeshii ay biibaxada tegi jirtay meelka dheer ay tagtay khasaarihii ay geysan jirtay khasaare ka badan oo ay geysatay. sidaas darteed marka waxay samaysay geeda lagu yiqiinay inay biibaxada ka baxsadaan oo badana dhintay. sida geedaha hadda ugu badan oo dadka ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah geedaha loo yaqaano nooca liinbalbeelmada loo yaqaano liin dhanaanta oo kale camba oo aan lagu aqoonin inuu biibaxada disho oo kale dad badan cambihii ka dhinteen. marka biibaxadu waxay geysatay khasaaro beeraha markii loo fiiriyay khasaaro xooganay geysatay oo geedmirooday dishay. geedmiroodna waxaa laga daba tegi karaa dhaqaalihiisa 4 sano ilaa 5 sano hadda kadib ayay qaadanaysaa in la soo saaro. marka caqabad dhankaas oo geystay markii laga soo tago waxa loo yaqaan cash cropeska sida basasha oo kale ama qaraha oo kale ama yaanyada oo kale oo ay dadku ku soo aadinayeen xilliga ramadaanka maadaama magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay magaalooyin badan ay ka qaataan qudaarta oo suuqyo badan ku xiran yihiin. waxay isku diyaarinayeen dadka reer hiiraan ama reer beledweyne inay soo saaraan qudaarta loogu talagalay ramadaanka in sida aadka loo isticmaalo. isla mar ahaantaasna waxay ku adkaatay marka dadkii ka qaadan jiray suuq ahaan ka qaadan jiray qudaarta inay meel ay ka qaataan waayaan. cabdixakiin waa mahadsan tahay. taasi waa dhibaatada soo gaartay ama aan dhihi karno dhinaca dhaqaalaha iyo wixii la filayay. ma jirtaa wax dhibaato ah oo dhulkii wax lagu beerayay dhibaato ay u geysatay fatahaadda oo aad noo sheegi karto? dhulku waxa waaye si unbuu u diyaarsan yahay. waxyaabaha caqabada u keenaysa waxaa ka mid ah qaabkii uu dhulkii u diyaarsanaa. biibaxadu waxay soo qaadaysaa nooc ka mid a meeshii ay ka imaatay waxaa jiro cawsas aan inta laga helin abuurkooda halkaas ka soo qaadaysaa intay keenaysaa. abuurkiina wuxuu suuragal hadhow u noqonaysa markii uu caradan helo iyo biyahan isku helo inuu inta ka soo baxo. sidaas darteed marka hadhow waxay noqonaysaa beerihii aad ku taqeenay inuusan caws badan ka soo dhalanin. biibaxada markii laga soo laabto 2 ilaa 3 bilood oo kale wuxuu ku sababayaa caqabad caws fara badan oo xitaa gobolka aan laga aqoonin oo ku arkaysa. sidaas wuxuu keenaa cayayaano oo kale keenaa. cayayaanada wuxuu ku keenaa qaab ukumaha ku soo qaada markii biibaxadii ay baxdo ay dhulka tagtana oo kale ukumihii ku soo haraya isla mar ahaantaasna ukumihii intay ku dilaacayaan cayayaan aan horey loo aqoonin. hadda 2016 oo kale waxaa jiro cayayaan ka yimid dalka Itoobiya nooga yimid oo kale oo caqabad badan hadda u geysto dalka loo yaqaan galeyda. isbedel ku yimaada beerta carradeedii sababtoo beertaada waxaa laga yaabaa inay ku taqiina carramadu biibaxada markay ka laabato oo u maatana beerta inay ku aragto carro kale nooc kale ama bacaad ah ama carro kale carro guduud ah oodan horey u aqoonin isla mar ahaantaasna ay ku adag tahay waxyaabihii qudaarta ahaa inay kaaga soo baxaan. sidoo kale caqabadaha quseeya biibaxada waxay keenaysaa waxaa ka mid ah dhulka beerta markii laga fiiriyo waxay burburisaa dhammaan structure-kii u samaysnaa ama qaab dhismeedkii u samaysnaa beerta hadday ahaa lahayd kanaaladii iyo hadday ahaa lahayd wadadii gaadiidka uu ku soo galayay beerta jibaaladii waxaasoo dhan waa burburiyaa dibna waxaa loogu soo sameynaa dhaqaale kale ay qaadanaysaa in loo soo sameeyo. waxaa jira qalabyo beerta loo isticmaalo oo ay dadku dhigteen meelihii aysan ku talagelin inay biibaxada tegi karto isla mar ahaantaasna biibaxadii si lama filaan ay ku gaartay ay dib u qaaday ama webiga ku darta ama meelo kale oo aysan dadka ka raadsan karin ay geysay sida gaardameerayaashii beerta looga shaqeynaa kalo. marka dhibaato intaa la eg qof beeraley ah oo laga yaabo inuunan jeeb buurneen intee qaadan kartaa in laga soo kabto? soo kabashadeeda waxay qaadanaysaa xilli badan sababtoo waxaan hadda ay goysay waxaa lasoo dhaqaalinaya muddo badan
tusaale ahaan hadda dadka qaar waxay ku leeyihiin aniga waxay iga goysay 1200 oo geed oo liina 1300 oo geed oo liin dhanaana iga goysay waxay iga goysay 50 geed oo liin balbeelmo ah waxay iga goysay intaasoo geed oo maxay ahayd ii sheeg intaasoo hektar oo moos ah waxaasna waxay qaadatay markii hore waqti waxay qaadatay shaqaale fara badan oo ka shaqeynaayo waxay qaadatay lacag waxay qaadatay maxay ahayd ii sheeg qalab ka shaqeynaayo oo just waxa ku dhacay amortization oo ku dhacay sidaas darteed intii hadda ay soo wadeen in laag inay sii wadaan waxay u baahan tahay dhaqaalo marka shakhsi intaas juhdi soo gelinaya beertiisii oo kasii shaqeynayay maxay ahayd waxyaabahaas dadku ay u baahan yihiinna dhigay hadda markuu ku imaado dhabarjab intaas la eg wuxuu ka fikirayaa marka haddii aad dhigto biibaxas uma imaan doonto haddana waxa ay ka fikirayaan dadka inta ugu badan waxaa hadda aniga haddaan liin dhigo haddaan moos dhigo haddaan babay dhigo haddana waxaan sugaa waa biibaxo marka waxyaabaha ugu badan oo hadda dadka caqabada ku noqdeen waxaa ka mid ahay waxaa laga soo baxay 4 bilood oo biyuhu webiga Shabeelle isbedelay oo dhanaan ama tastigooda oo isbedelay oo beerta aysan qaadi karin sidaas darteed markii biyihii isbedelkii oo iska bedelay oo roobabkii bilowday dadkii waxay bilaabeen inay beerihii aad u waraabiyaan markay aad u waraabiyeen waxay dhacday beertii inay biyo dharagto beertii biyo dharagtay iyo biibaxadii isku imaaday 19 maalmood ugu badnaan biibaxooyinkii soo bixi jiray 16 maalmood ilaa 19 maalmood beerta way ka naqi jireen laakiin hadda waxay ku gaartay 32 ilaa 35 sidaas darteed beeruhu inta badan ma lahan waxa loo yaqaano biyo shuur oo beertu biyihii waa kusoo go'ayaan oo god ahaan u samaysan tahay ilaa ay beertu biyihii ay ka guraan marka geedkiina uu sii dhimanaya sidaas darteed maalintii biibaxada naqaysay ilaa 10 maalmood kadib ina beertu biyo kusii juraana laga yaabaa waa hagaaga dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdixakiin cumar yuusuf oo aqoon dhinaca beeraha islamarkaana bara ka ah jaamacadda hiiraan kuliyadda beeraha waxaanu magaalada beledweyne ugu warramayay waryahayaga xuseen xasan dhaqane dowladda talyaaniga ayaa u yeertay safiirka faransiiska ee dalkaasi kadib markii wasiirka arrimaha dibadda faransiiska uu cambaareeyey go-aankii dhowaan talyaaniga xeebihiisa uu uga celiyey markab ay saarnaayeen 629 qof oo muhaajiriin ah dadkaasi ayaa waxaa markii dambe aqbalay dalka Isbayn faransiiska ayaa tallaabada talyaaniga ku tilmaamay mas-uuliyad darro waxaana haatan talyaanigu ay doonayaan raaligelin ka timaada madaxweynaha faransiiska jaamac buulla jaamac ayaa arrimahan ka wareystay shukri siciid oo ah saxafiyad ku sugan dalka talyaaniga arrintaas waa sax weeye waa run weeye labadii markab oo midna loo daadihiyey Spain dawladda Spain ay la wareegtay shalayto midkii aquarium iyo mid kale oo SOS Mediterranean maraakiib hadda ku xayiran baa jirta oo ku xayiran hadda oo dad saaran yahay oo badda gudaheeda saaran arrintaas awgeed baa shalayto boosishinka talyaaniga oo wasiirka talyaaniga oo arrimaha gudaha oo ra-iisul wasaare ku-xigeenna ah wasiirka arrimaha gudahana ah oo xisbiga populistiga ah oo midigta ah oo soo galootigana neceb oo rabsistiga ah oo leeda la yidhaahdo noor ka soo jeeda yaa xurgubtaasi ka dhalatay laakiin markii runta loo fiiriyo faransiisku waa gardaran yahay barkee faransiisku waxa weeyaan wuu caystamay oo erayo qalafsan oo aflagaada ah uu ku kacay mideeda kale wuxuusan u fiirsanin runtii faransiisku waa dadka soo galootiga albaabada isugu dhuftay naago uurarle iyo dad masaakiin aho meeshaan bintimiliya la yidhaahdo iyo meeshaan oo xuduudka oo ay gacanka la leeyihiin ingiriiska dad masaakiinaha lagu hayaa oo dhaxan iyo roob iyo baraf isugu tageen oo halkaas weligoodna waxay u qabteen ma jirin waxa albaabadayna ka marka xaq uma lahan talyaaniga oo maaragtay ilaa 1 milyan oo qof soo dhaweeyey last 2 years inay shukri waxaad dib noogu celisaa faransiiska aflagaadada ay yidhaahdeen markii laga tago in uu wasiirka arrimaha dibadda faransiiska ku tilmaamay go-aankii dowladda talyaaniga inay kheyr mas-uulnimo tahay ma ereyo kale oo aflagaada ayay geysteen erayo aflagaada ay geysteen macron afhayeenkiisa iyo macron iyo waxay yidhaahdeen waa wax maaragtay lagu matago eragaasay isticmaaleen oo erey xun oo fool xuma waxay yidhahdeen waa wax laga matago waxa talyaanigu sameeyeen talyaaniguna aad bay uga xanaaqeen hadda maanta shir baa jiray oo wasiirka maaliyadda oo talyaaniga iyo financialka iyo kan faransiiska ballan oo ay wada lahaayeen oo xataa macron uu confirm gareeyay oo shiraho
baris ka dhici lahaa. haddadaasaan ajiistooyinka intaad ila hadlaysid u jeedaa wuu kansalay wasiirka dhaqaalaha oo talyaaniga wuxuu yidhi uma tegayno. question timekana hadda markaan waxaa socda oo hadlayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiiru arrimaha gudaha oo talyaaniga wuxuu yidhi ilaa ay oo raaligelin ay ka bixiyaan waa shirkii uu Macron qalqaaliyey talyaanigu xarguhu u jar. waxaad carabka ku dhufatay in ay jiraan maraakiib kale oo ayaguna hadda xaniman ama doomino wado dad muhaajiriina, bal ayaga inooga waran. waa jiraan maraakiibtaas, waa maraakiibyo oo enerjiyo oo waxaa iskale ururadan non governative organizationka ah oo adduunka oo dhan oo xataa kuwa Maraykana, kuwa reer Yuruba, kuwa Ingiriis, kuwa Jarmala yaa ku jira. waxay waayihii dambe caadaysteen inay intay Mediterranean-ka markii kuwan qolyahan dadka tahriibiyo oo carabta ah oo liibiyiinta iyo waxaas ay magafaha Soomaalidu u taqaano ay dadka soo qoraan inay intay xeebahaas oo internationalka ah oo Libiya agteeda ay u istaagaan ay soo guraan. taas waxay horseeday inay ku dhiiradaan magafayaashii inay dadkii soo dhoofiyaan oo soo tahriibiyaan. ayaguna markay soo guraan wadamadooda ma geeyaan, talyaanigay soo dhoobi jireen. awal waagi hore waa la aqbali jiray, laakiin hadda Salvini wuxuu yidhi boorarkayga waa xirtay maraakiib oo aan talyaani ahayn waxaysan sidin ma ku soo xiran karaan. taas baa hadda laysku hortaagan yahay oo laysku haysta. Shukri Saciid, ugu dambayntii waxaad nooga warantaa Soomaalidii muhaajiriinta ahayd ee Libiya iyo meelaha kale laga keenay iyo kuwii sharci darrada ku yimid, xaaladooda talyaaniga. Soomaalida xaaladoodu waxa weeye waxay la mid tahay qaxootiga talyaaniga markuu qofku soo galo oo la soo gelgeliyo wuxuu iska noqonayaa qaxooti laba nooca, mid suga ah oo inuu qaabilaan la sugo iyo mid maxaahayde la qaabilo. intay sugahayaanna waqti bay qaadanaysaa, wax sahlan maaha. laakiin mar hadduu talyaaniga yimaado central la geliyo, meelaha la geliyo, halkaasu waa la daaweeya, waiting ku jira. laakiin waagii hore waa la qaabili jiray waana lasoo dhawaa, laakiin hadda xaaladii waa isbedeshay. ninka hadda meesha haysta oo dawladda ra-iisul wasaare ku-xigeenkana ka ah, wasiirka arrimaha gudahana ah, wuxuu yidhi cid dambe oo iisoo galaysa ma jirto, boorarkaygii iyo maxaahaydeen dekedahaygiina waan xiranaya, ciddii aan xaq u lahayn oo kalena markaas lacagtii soo dhawaynta lagu bixin jiray buu wuxuu yidhi waxaan u weecinayaa dhanka oo sidii dadka loo cayriyey. Soomaalida dadka awal kama duwanayn, dhib gooniyahoo gaarana ma haysan, laakiin hadda markaan waxaa loo baahan yahay in dadka laga wacyigeliyo in isbedel weyn oo rasmiya uu ku yimid. wixii gudaha ku dhinta maahan iyo Libiya ay ku baabi'ise, wixii kale oo kasoo gudba in xataa aysan soo dhaweyn wanaagsan aysan helayn. marka dadkeenna waa inaan u sheegno walaalahayaha ummadda Soomaaliyeed inaysan ilmahooda soo halligin, inay ilmahooda fiirsadaan, inay ka taxadaraan sidii ay dhibkaas uga waantoodi lahayd. taasi waxa ay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyeed ku sugan dalka Talyaaniga oo u waramaysay Jaamac Bulle Jaamac. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA. waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed, barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha, balse markaan aynu dib ugu laabanno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa qoraal u bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku yidhi hadda ayaan soo degay, safar dheer ayuu ahaa, balse qof kasta hadda waxa uu dareemayaa amni ka badan kii maalintii aan xafiiska la wareegay. isagoo intaasi madaxweyne Trump ku daray in kulankii uu la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu ahaa mid xiise leh, islamarkaana ay ku duugnayd khibrad dhanka wanaagga ah. Kuuriyada Waqooyina ay mustaqbal weyn leedahay. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa kulankii ay isaga iyo Trump ku wada yeesheen dalka Singapore ku aqbalay salaasadii in guud ahaan gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka, iyadoo Trumpna uu si lama filaana u sheegay in uu joojinayo dhoolatuska militari ee ay wada sameeyaan Kuuriyada Koonfureed.
isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee taageera dowladda dibadjoogga ah ee dalka yemen ayaa maanta bilaabay weerar ka dhan ah magaalo xeebeedka muhiimka ah ee xudayda. mucaaradka xuutiyiinta ayaa maamula magaalada xudayda iyo sidoo kale magaalada caasimadda ah ee sanca. dowladda imaaraadka carabta oo qayb ka ah isbahaysiga sacuudiga ayaa sheegtay in maanta ay ku ekeed wakhtigii loo qabtay in xuutiyiintu ay uga baxaan magaaladan dekedda leh. xudayda waa magaalo muhiim u ah cunnada iyo gargaarka la geeyo dalka yemen, waxaana gudaha iyo hareeraha magaaladaasi ku nool dad gaaraya 600 oo kun oo qof. dowladda dibadjoogga ah ee yemen ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in qabashada yemen ay muhiim u tahay dagaalka ay ugu jirto in ay gacanta ku dhigto maamulka dalkaasi. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 3 sano ee uu socday dagaalka yemen lagu dilay 10 kun oo qof oo badankooda ay ku dhinteen duqeymaha ay fuliyeen isbahaysiga sacuudiga. dalka talyaaniga ayaa safiirka faransiiska dalkaasi u jooga u gudbiyey waraaq ay kaga jawaabayaan faallow madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo uu ka bixiyey diidmadii talyaaniga ee ahayd in dalkooga ay ku soo xidhaan 100 muhaajiriin oo badda laga soo badbaadiyey. madaxweyne macron ayaa sheegay in talyaaniga laga rabay in iyagoo eegaya sharciga caalamiga ah ay aqbalaan muhaajiriintaasi oo badankoodu ka yimid dalalka saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika. wasiirka arrimaha gudaha talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in faransiisku iyaguba ay qaataan muhaajiriintan, islamarkaana madaxweynaha faransiiska ay tahay inuu hadalka ficil u bedelo. dalalka maraykanka, canada iyo mexico oo wadajir ah ayaa ku guulaystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 kadib codbixin maanta ka dhacday dalka ruushka oo berri uu ka furmayo koobka adduunka. 3 dal ayaa ka adkaaday dalka morocco oo ahaa kan keliya ee la loolamayey. waxa ay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirka dunida ee fifa ee doorashadan sameynayay, halka morocco ay ka heshay 65 cod. fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan baalkuli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo gudbin doona wariyahayaga nuur bukhaari. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban. wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa toddobaadkan soo bandhigtay naqshadda ay yeelan doonto lacag cusub oo shilin soomaali ah oo ay dowladdu qorshaynayso inay soo saarto. haddaba ma la joogaa xilligii ay dowladda soo daabici lahayd lacag cusub? xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonnaa, waxaana marti iigu ah maxamed aadan oo ah xeldheere dhinaca maamulka iyo xisaabaadka ah kuna sugan muqdisho, iyo xasan aadan hoosow oo ah dhaqaaliyahan haddana dhanka dhaqaalaha kala taliya wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka albeerta ee dalka Canada. akhyaarta sharafta leh soo dhowaada. ugu horreyn waxaan siinayaa maxamed aadan. maxamed, xilligan ma habboon tahay in dowladda ay soo daabacdo lacag cusub? maxayse tahay sababta? asalaamu calaykum. waan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba iga dhegeysanayaan. ugu horeyn waan soo dhaweynayaa tallaabada cusub ee ay qaaday dowladda soomaaliya ee daabicidda lacagaha cusub. runtii waa la joogaa xilligii dowladda soomaaliya ay soo daabici lahayd lacag iyadu u gaar ah. kolley wadanku wuu lahaa lacag oo shilin soomaali ah, laakiin lacag ay isku taallo ama 5,000 ama 10,000 oo isku yaala runtii muu yeelan. waana markii ugu horreysay wadanku yeesho lacag nambara sidaas oo kale ah iskugu dhegan. waana la joogaa runtii markii ugu horreysay oo in la keeno lacagtaas ah. waayahay, waxaan jeclahay inaan siiyo xasan aadan hoos. waad mahadsan tahay nuur iyo walaal kale qadka ku jira. run ahaantii 2 arrimood waa muhiim. dalka ma u baahan yahay lacag? waa haa. wadankan hadda lacagtiisa badanaa ma aha lacag sax ah, waa lacag faalse ah. muddana soomaaliya way ka maqnayd dhaqaalaha adduunka. marka wadankii inkastoo hadda ay ka jiraan lacago mobile isugu xawilo iyo dollar oo wadankii ka shaqeeya, waxaa jira dad badan oo baadiyaha jooga u baahan lacag soomaali inay helaan. laakiin su-aasha meesha taallahay waxay tahay lacagtan marka la sameynayo dal baa loo sameynayaa. dalkan ma faa'iiday u tahay ma khasaaray u tahay? haddii aan ka hadalno mustaqbalka dalka ee saameyn ee lacagtan ku yeelan karta, waxaan ka eegeynaa dhowr arrimood.
dhaqaalaha soomaaliyeed waa dhaqaalo burburay oo IMF ay kamid ahayd dadkii burburiyey. waxaa loo baahan yahay dhaqaalaha in gebigiisa dib u habeen lagu sameeyo, laakiin lacagtan hadda la daawacayo waa lacag lagu bedelayo lacagtii hore, keliya nambarada isdheer. marka taas marka la sameeyo waxay noqonaysaa suuqii in uu sicir barar ka dhaco oo uu si isla mid ah uga jawaabo. lacagta markay faalasa tahay iyo markay sax tahayba suuqa isku mid buu uga jawaabaa. marka waan ognahay sicir bararkii dhacay xilligii Siyaad Barre markii lacagaha 1,500 iyo la keenay. waan ognahay lacagihii faalsa ahaa ee waddanka yimid oo xilligii Cabdiqaasim la keenay siduu suuqa uga jawaabay oo sicir barar oo 100% ka badan ah u dhacay. marka taas waa dhibaato. waxaa kaloo dhibaato ah waddankan waa maamulo federaal oo isdiidan. lacagtan marka lasoo daabaco waddankii siyaasad maaliyadeed oo midaysan ma laha. marka gobolada ma wada aqbali doonaan. Somaliland waa maya, ma aqbali doonto. gobolada kale ma aqbali doonaan. ma garanayo waxyaabo fara badan oo lacag ka muhiimsan oo la wada aqbali la-yahay baa jira. marka haddii la aqbali waayo waa fashil. sidoo kale waxaa jira IMF lacagtan ayadaa maalgelinaysa daabacadeeda. IMF wadamada ay ka kabto arrimahan waxyaabahay ku xirto waxaa kamid ah shuruudo fara badan. marka dawladda Soomaaliya hadda waxay dadaal ugu jirtaa in ay canshuur ururiso, in ay maxay ahayd telecommunicationkii waxda isgaarsiinta ay sharciyo u samayso. intaasoo dhan iyo lacagtan la daabacayo waxaa loo yeelayaa ayadoo dadaal loogu jiro sidii waddankan inta deen laga cafiyo deen kale loo heli lahaa. marka haddii mustaqbalkii Soomaaliya oo dhan lagu saleeyo 5.2 bilyan oo deen cafin IMF ay bixinayso oo waxaan oo dhan la sameeyo, waxaan u malaynayaa runtii inaysan sax ahayn. arrintan hadda kahor baa Zambia ku qaldantay. waxaa ficnaan lahayd siday Turki u maaraysay oo kale in loo maareeyo lacagta shilin laga soo bilaabo haddii la awoodo, laakiin sidaan sax ma. wixii tale oo usoo laaban doonaayo maxamed aadan. maxamed waa maqlaysaa. xasan wuxuu leeyahay wadankii siyaasad maaliyadeed oo midaysan kama jiro, gaar ahaan dhinaca maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo khilaafaad uu hareeyey. waxaana laga yaabaa in lacagahan lasoo daabacayo ay keenaan sicir barar iyo wix lamid ah. marka adigu miyaysan taasi ku muuqan? runtii walaalkay siduu sheegay waa jirtaa inaan wadankii aanu midaysnayn maamul ahaan iyo dhinac walba. runtii lacagaha lasoo daabacayo sicir barar way keenaysaa, laakiin sicir bararkaasi waxa lagaga bixi karaaba waxay tahay in marka hore loo midoobo in lacagahaasi lasoo dhaweeyo ama isticmaalkeeda. haddii kalena la sameeyo wasaaradda maaliyaddu inay samayso qorshe cad oo ay heshiis kula gelayso amba ay hanaan kula dejisanayso ganacsatada iyo bangiga dhexe si loo hirgeliyo isticmaalka lacagtaas cusub. dabcan waa markii ugu horeysay ay Soomaaliya yeelanayso lacag cusub oo loo soo daabaco ama lacag isku taalla ah. caqabad way ka imaanaysaa. caqabadahana waxa lagaga bixi karaaba waxay tahay in la dejiyo qorshe cad intaan waddanka lacagta la keenin marka hore. xasano maxamed waad maqlaysaa. waxa uu leeyahay wasaaradda maaliyadda ayaa looga fadhiyaa in ay qorshe cad u dejiso soo ururinta lacagaha iyo weliba lacagtan cusub ay soo daabici doonto. marka qorshe noocee ah ayay u baahan tahay maadaama aad tahay qof dhaqaaleyahana? intaanan su-aashaas dib aan uga jawaabayaa hordhac yar. run ahaantii wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iyo shuruuc ay dejiyeen oo hadda muuqata oo in lagu midaynayo howlahan ma muuqato. meeshan waxaa muuqda haddaad akriso waxyaabaha ka socda arrimaha dhaqaalaha ee Soomaaliya, waxaad arkaysaa in shuruudo lasoo dejiyey oo dawladda loo dhiibay, dawladdana ay shuruudahaas fulinayso. ma aha in ay dawladda ayadu hogaanka hayso. hogaanka waxaa haya IMF iyo bangiga adduunka, laga soo bilaabo shaqaalaha maamulka maaliyadda ilaa iyo qaabeynta lacagta, qaabeynta canshuurta. waxaasoo dhan waa shuruudo dibadaha ka yimid. waxay Soomaali leedahay meesha kama muuqdaan haddaad akriso. laakiin way wanaagsanaan lahayd. dhaqankeena Soomaaliya wuxuu yahay in wax walba aan sameyno annagoo aan guryihii iyo sharciyadii u dhisin. hadda waxaa muuqata in la keenayo lacago waddankan ayadoo meelo kale ay shuruudihii ka yimaadeen. dawladdiina aanan u hayn laba arrimood. arrinta koowaad oo ah lacagtan qiimaheeda sidii lagu xifdin lahaa, xitaa waa lacag laga soo amaahanayo IMF. lacagta lagu daabacayo waa lacag IMF ay bixisay. tan kale shuruucdii lagama heshiin. waddanka sidii dakhli loo ururin lahaa lama hayo. bangiga sidii uu lacagtan usoo ururin lahaa lama hayo. laakiin waa waxyaabihii dalkan burburiyey bay ka mid tahay in ayadoon sharci jirin
wax walba la iska sameeyo kadib la yidhahdo maxaan sameynaa. waxaa kamid ah hadda arrimaha shidaalka oo ayaan hore la sameeyey iyo arrintan maaliyadda iyo waxay lamid tahay arrimaha federaalka oo kale ayadoon sharciba loo hayn in la sameeyey kadibna jahwareer uu ka dhasho. marka waxaan in waxa ay hagaagaan baa ka wanaagsanaan lahayd in dhaqsi loo sameeyo. marka dawladdu waxaan umalaynaya inay ku degdegayso. aad ayay u mahadsan yihiin. kuwaas waxay kala hayeen xasan aadan husow oo ah dhaqaalayahan haddana dhanka dhaqaalaha kala taliya wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka albeerta ee dalka Canada, iyo maxamed aadan oo ah xildheere dhinaca maamulka iyo xisaabaadka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho. waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. dhegaystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo. intaasaynu ku dhaafno doodii gaabneed. waxaa soo jeedinaya nuur bukhaari, waxaadna ka dhagaysanayseen v o a. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska. waxaa soo jeedinaysa caashe ibraahim aadan. kulanti wanaagsan dhegaystayaal. haddii ay jirtay beri xagbadda amaba ayuutada ay ahayd dhaqaale ay si qarsoodi ah ku abuurtaan hooyooyinka gurijoogga ah, hadda xaalku sidii hore waa uu ka duwan yahay. dumar iyo rag fara badan ayaa waayadan dambe si aan mugdi ku jirin oo dhaxalgalna noqotay u adeegsada ayuutada, taas oo ay sare ugu qaadaan dhaqaalaha qoysaskooda kuna daboolaan baahiyaha uu qoysku qabo ee u baahan dhaqaalaha. waxaa taasi dheer inay ganacsi ku abuuraan kuna kala socodsiiyaan. barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaa waxaa marti igu ah Qureesha Maxamed Nuuriye oo ah gudoomiyaha haweenka ee Garissa County ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Qureesha waxay ka mid tahay dumarka tababarada siiya haweenka, kuwaas oo ay ku jiraan ayuutada iyo sida ay u shaqayso iyo sidoo kale sida wanaagsan ee looga faa'iidaysan karo. Qureesha, kusoo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska. marka xiga waxaad igu bilowdaa sida ay ku timid in ayuutada ay ka mid noqoto howlaha uu xafiiskaaga gacanta ka geysto. wallaahi horta dad qaarkood aanan fahansaneyn baa jirtaa. magar inta fahansan waa inta magaalo jooga oo dhaqdhaqaaqa xoogahoo yara leh, laakiin dadka tuulooyinka ama maamooyinka xaafad jooga waxaas ma fahansan oo muhiimadeeda aysan garanaynin. ma garat marka ayuutada nafteeda waxay u baahan tahay in dadkii la wacyigeliyo oo la dhaha bal muhiimadeedii bal horta inay jaribeeyaan oy maaragtay ay silciyo qaarkood intay bilaabaan bay dhexdana ay ka baxayaan oo qadkay ka baxayan arkaa waxa inay shaqo badan ay tahay. marka waxaan ku wacyigelinaa inay waxaan ay joogto ay noqon karto oo daily maaragtay activity-ga lifestyle-kooda ay ka mid noqoto. maxaa yeelay maanta 100 ama 50 ama iyo miday waxba ay haysanin hadda 50 ama 100 meel ay dhigato oy maxay yahay ayagoo shirkad oo ama 20 ama bilcaan 10 isqabsadaan beri kama bacshare ku furanayaan. laakiin Soomaali haddaan anaga waxaas maarta dulqaadkaas badan ma lihin. so waxaan had iyo jeer aan ku baraarujinaa inaysan ay ka daalin oy maxay ahayd ay arrintaas ay kushii tallaabo qaadan ay sii weynaystaan. waa gartay. laakiin Qureesha waxaa jirta inta badan arrintan shaloongada marka la yidhaahdo haddii dadka ku wada jira aysan ahayn dad si weyn isku aaminsan oo dad aamina ay ka buuxaan, haddii aysan ahayn inta badan waxaa laga yaabaa in dad badan lacagtoodii meelo kale ay aado, lacagtoodii aanay helin markii waqtigooda la gaaro. marka adiga ka guddoomiye ahaan arrintaasi ma kala maaraysaa ama ma kala shaqaysaa haweenka raba in ay shuraaka noqdaan oo ay shalongo samaystaan oo lacagtii markay soo ururtaba ay mid qaadato si ay markaasi ganacsi ama beecsharo ay ugu furtaan? adiga kaalintaada maxay tahay? aniga kaalinteena waxaa waaye horta meeshan waxaa jirta horta ayaga dhexdooda grant waxaa lahaa jirtaa. ma garan grantka waxaa waaye ayaga as daminanayaan say isu daminanayaan. aniga oo kale ruuxaan aqaanaa keensani because dad walba adduunka hadda isma aamino sidaas sheegto waruno ayuutada dhexda ay ka kala go'i. ruux baa lacagta la go'i markuu lacagta u qaato dadka dambe lacagtii oo sida deynta lagu lahay isagoo bixinin buu iskaga bixi. so hadda waxaa la yeelaa dadka granta la suubinay. ruuxa grant waxaa la rabaa in maxay ahayd ani dadkii aan keenay in aan grant ka noqdo. hadday bixin waayaan marka iyada procedure waxaa jirtaa MOU yar ay kala saxiixayaan.
waxaa ruuxii sharcigaas ka gudbo marka iyada tilaabaqaad ama maxkamadeed ama maxay tii dawladiyaal iskula dhaadhici maxay waa wax sharci yar oo maamooyinka dhexdooda loogu talagalay inay kala qoraan ay kala subsadaan. yaa badanaa u kala qora sharcigaas oo haddii qof uu ka baxo, haddii qof uu lacagtii isagoon bixinin uu iska tago, haddii qof lacagtii uu bixin waayo, haddii qof uu carqalad ku dhex abuuro, yaa sharcigaas u kala saxiixa inta ay shalongadaani socoto oo qofka ugu dambeeya intuu ka qaadanayo in uusan buuq ka dhicin, yaa u kala saxiixo? haa, iyada waxaa u kala saxiixa anaga looyaraan qabnaa ma garan. ama chief hadday tuulo ay tahayna chiefkii baa joogaa oo duqeydii baa joogtaa, chiefkii baa joogaa. so processkan waxaa waaye waxaan ku leeyahay waxaa waaye training baan usubinaa waxyaalahaasa kamid aan kahortag ku subinayn inay dhagaan maamooyinka lacagaha ila goosan oo waxaan ay noqoto wax sharci oo go-on oo ruux ilaahay ruux u dambeeya lacag intuu ka qaadanayo aanan la goosan karin. soo sharciyaalkan waxaa waaye chief hadday maxay ahayday tuulo ay tahay chief baa joogaa, eldaas duqeyd baa joogtaa, hadday maxay ahayday anaga gaar haddaan joognana waxaa waaye meesha lawyer baa joogaa. so agreement markaa kala qaadanaysin lawyerkaas idin saxiixa oo idinkala dhex jiraan. so ruuxa sharciga haddii la mariyo ma kuma degdegayso oo xoolaha dadka iyadoona dhamaashtirin marka iyada gurka kama baxayso markii lacag lala goysanayo ma laha. laakiin markaad dhinac kale ka fiirisid Quraysho, inta badan shalongada qoysaska dumarka maahe dhinacyada kale qoyska ama aabihii oo kale reerka intiisa kale inta badan shalongadan waa laga qayliyaa. waxaa la yidhahdaa biilka iyo caruurta dhexda inta looga dhaco ilmihii cunadoodii ama caanahoodii ayaa la aruursanayaa. inta badan buuq bay qoysaska qaar ka dhex dhalisaa. arrintaasi ma idinku dhacda adinka? wallahi nooma dhacda. maxaa horta anaga gaarsa haddaan horta boqolkiiba horta 90 hooyooyinkii baaba hadda mas-uuliyadda kusoo wareegtay cidii xoolihii maxay ahayda iyo maamulkii ma garat. marka lacagta asal ahaanba iyagaa markii horeba shaqaystay miya? ha, hooyooyinkaa shaqaysteen. maxaa yeele hooyo guri fadhida ma arkaysid. hooyo hadday guri joogto hataa casarka markii la joogo waxaan ku baraarujinaa waxay qaadanay baatay soo wareejisan, unsi way soo wareejisan. so waagii ragga la sugi jiro oo gacmaha loo horsan jiro waa almost baa laga baxay. marka xoolahoodii bay qaarna carruurta siisanayaan qaarna aruursanayaan. ha, qaarna aruursanaya because hadda beri cunuga fiiska markii looga baahda iyadaas lacagtaas ay aruursatay wiilka fiiska oga bixin, gabadha fiiska oga bixin oo ilmihii maxay ahayd iid hadii loo baahan yahay oga iibsani. so raggii aad boqolkiiba boqol aad maxay ahayd looma wasi hanweynaba oo dumarka ma sugaan. dumarka ma sugaan. ha, raggi because hadda maamulka ragga waa haysta oo biilka ilmaha asagana wuu keeni, laakiin wixii hoose becshirada ay haystaan maamooyinka ayaa ismanaj garayaan. marka ilaa iyo hadda inta adigu ogaanta imise dumara oo shalongadan wax ku urursaday, dhaqaalo ku urursaday ayaa ganacsi samaystay intaad og tahay? wallahi horta intaan ogahay maamooyinka way badan yihiin. hadda waxay ku jiraan ayagii dhexdooda hadda iyadoo shaqada weli u socota waxaa jirtaa maamooyinka dahabka ee hadda shalongay ku jiraan, kuwa baatiyaalka ayagana oo kale ayaga way suubiyaan. hataa midda dhuxul gadata way ku jirtaa, midda caanooleyda oo jaaga jarganka dhabarka ku haysata caanooley association la dhaha way ku wada jiraan shalongada ma garan. so mid walbaba heerkeedaasay garaacay. tii caanooley caanaheedii way kula jirtaa, midda dhuxusha midda meel walba midii daily bread oo meel yar ku jirta shalongada way ku jirta. hadda u yarata deer 50 shilin maalintii ha meel dhigate. faa'iidada ugu badan marka ee inta badan dumarka ay ka heleen oo ilaa hadda muuqatee la ogaaday ee shalongadan ay dumarka ka heleen reer Gaarisa maxaa ka mid ah? wallahi horta maamooyinka businesses badan hadda badi waxa maanta kor u qaaday waa shalongada. maxaa yeelay maamada hooyada cidda fadhida oo waxba haysanin bisha 2 bilood 3 bilood hadee meesha ay gasto beri waxay bilaabi gaarmkoon inay ku baaqiyaan ku wareejisato oo maxay ahayd ay hadee kaba meel dhiganayso ay gaarmkoon ay ku wareejisato kabihii midda cambada wareejinaysa marka hore may haysanin. maxay cid ay kasoo bilowday shaqada. so waxaan u arkay business u badan maamooyinka maanta suuqa ku jiro inay through this shalongada neto inay kusoo caanbaxday oo imasi heerka hadda ay gaareen hooyooyinka ay maxay ahayd ay ku gaareen ayuutada. marka ka hor inta idnaan u furin tababaradan ku saabsan in shalongadan ay wax fiican tahay oo lacag lagu urursanayo oo qofkii uu inta lacagtii markuu urursado uu ganacsi ku furanayo ka hor intiinaan bilaabin dumarka sidee u qabsan jireen? wallahi waagi horey way adkeed. maxaa yeelay shalongada intaan la fahmin way adkeed sidii maamada ay becsharo ku bilaaban lahayd. waxaa u badnayd hooyadii ba iska fadhidaa, ninkii baa lagu sugi biilkii ha yaraata ha badnaata wuxuu keena. marka hadda waagi hore waxay ahayd way cuslayd maamooyinka waa arki jirta waxay dhici jirtay inay hooyada way ku yareed suuqa inay gasho ma garan. hadda laakiin maadaama systemka la fahmay waxay aragtay maamada guri fadhida inay maxay ahayd ugu muhiimsan tahay inay suuqa ay ku gasho shalongada. waxay yareed bishan ay bilaabi 3-4 bilood ka dambe waxay aragtaa 20-30 kun ay business ku bilaabtay inay hesho. so waxa way from zero inay maxay ahayd haddana ay suuqa ay ku gashay shalongada. so waxaan u aragnay faa'iido weyn inay kala kulmeen hooyooyinka. waa gartay taasi waa hal tallaabo hadda aad ku guulaysateen ka Gaarisa ahaan. maxaad tiigsanaysaan?
waxaan tiigsanaynaa inaan sii wadno oon taas merigorumkaas ma ahee wax ka badan oo association oo la dhaho inaan hooyooyinkaan u siidano ma garat oo account aan u furno oo hooyo meer networking women networking inaan suubino gaarisa account aan u furno associationkaas so that maamadeen inay every mother ay ka faa'iidaysato associationkaas haddaanuna bil walba taas ayuna target kayna waay mid aan tiigsanayn because hadda ayuutada oo kale heer waxay gaari doontaa hadhow maamooyinka desa hadday u fahmeen hadda aan ku wadno hadhow waxay gaarayaan ayaga dhexdooda account ay furanayaan oo associations oo women gaarisa women so every month waxaan isku dayaynaa in ay dhigan doonto lacag accountigaas 100 shilin for example ayagoo leaderskoodii structurega loo hagaajin doono oo kadib si dhaqaalaha meesha hadda ay joogaan uu uga sii kobco uga sii kobco oo meelo kale haddana ay fofog haddana ay usii taageergarayaan hooyooyinka intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku soo qaadannay dumar badan oo waayadan dambe si aan mugdi ku jirin oo dhaxalgalna noqotay u adeegsadaa ayuutada taas oo ay sare ugu qaadaan dhaqaalaha qoysaskooda waxaana marti igu ahayd guddoomiyaha haweenka Garissa County ee gobolka waqooyi bari Kenya waxaana dhegaystayaal naga xusuusina in toddobaadka dambe aanu barnaamijkan ku eegi doono heerarka kala duwan ee hagbadda iyo kaalinta ay kaga jirto kobaca dhaqaale ee qoysaska intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay Ramadaan Kariim caashe ibraahim aadan iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna aan saaxiibkay axmed cali sheekho barbarkaiyo midig fadhiya aan ka codsado wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha maalinta beri ah ayaa waxaa si rasmi ah u furmaya koobka kubadda cagta adduunka oo lagu qabanayo sanadkan 2018 dalka ruushka waxaana kulanka ugu horeeya uu dhex mari doonaa dalka martigelinaya koobka ee ruushka oo martigelin doona dalka sacuudi arabiya dalalka Brazil, Spain, Jarmalka iyo sidoo kale dalka Argentina ayaa ka mid ah dalalka loo saadaalinayo in ay koobkan hantaan dalka Jarmalka ayaa koobka difaacanaya dhinaca kale xulka kubadda cagta dalka Spain oo ka mid ah dalalka koobka loo saadaalinayo ayaa maanta shaqada ka ceeriyay macallinkii xulka qaranka dalkaasi Julen Lopetegui maalin ka hor bilowga koobka adduunka Julen oo shalay loo magacaabay tababaraha kooxda Real Madrid ayaa lagu eedeeyay inuu wada hadal la galay naadiga Bernabeu isagoo aan la tashan xiriirka dalka Spain tallaabadaasi ayaa la sheegay inay aad uga cariisisay xiriirka dalka Spain ayaa ka mid ah dalalka loo saadaalinayo koobka adduunka waxaana tani qalalaase ku abuuri kartaa hab ciyaareedkooda koobka Fernando Hierro oo ah kabtankii hore ee kooxda Real Madrid iyo xulka kubadda cagta dalka Spain ayaa loo magacaabay inuu noqdo macalinka cusub ee dalka Spain Fernando Hierro waxa uu sheegay in Spain aysan nasan doonin isla markaana uu rajeynayo in koobka ay hantaan ugu dambeyntiina dalkan Mareykanka iyo dalalka Canada iyo Mexico ayaa si wada jir ah ugu guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 ka dhici doona saddexdan dal waxaana tani ay dhacday kadib markii ay codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka saddexdan dal ayaa ka askaaday dalka Morocco oo ahaa kan kaliya ee la loolamayay waxa ay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirka dunida ee doorashada maanta sameeyay halka Morocco ay ka heshay 65 cod koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 ayaa waxaa markii ugu horeysay ka qayb gali doona 48 dal halka iminka ay ka qayb galaan 32 dal waxaa dhici doona 80 kulan oo koobkaasi ka mid ah 60 ka mid 80kaasi waxa ay ka dhici doonaan dalka Mareykanka 10 kulan dalka Canada 10 kulanna dalka Mexico ciyaarta finalka ee koobkaasina waxay ka dhici doontaa dalka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amaanay go'aanka FIFA ay martigelinta koobka adduunka ay ugu abaalmarisay Mareykanka Canada iyo Mexico waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee koobka adduunka lagu qabto dalka Mareykanka tan iyo sanadii 1994 oo sidoo kale Mareykanka uu koobka martigeliyay sanadkaasina waxaa koobka ku guuleystay dalka Brazil wararkii ugu dambeeyay ciyaarahana waa naga intaas
waa hagaag dhegaystayaal aad ayuu mahadsan yahay waryahayga axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haatana warna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in weerar maleeshiya loo malaynaya inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaasoo ku sugnaa agagaarka sinima liibaan ee degmada huruwa ee magaalada muqdisho ilaa haddana lama garanayo amaba lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi lagu qaaday ciidamada aad aad u mahadsan tahay cabdixakiin markana waxa aynu dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa qasiido nebi ammaan ah oo halkudhigeedu yahay ergadii furqaan isninbaad ka dhalato adduunyada xuskaagii olola ka dhacayo urur weyne goortii cantaadu bururtaa xidigu ifeeno dayaxaa ilayskii ashqaraar ku ridaayo addoommaha dhammaanba ibshirlaha la yidhiyo inta hadda duushiyo idin labar dugaagba abaabulay cayaaro irtuogadaadiyo afartaada geesood ubaxiyo caleenbay ku ilaa xireeno amina nijaarba kugu qaadayuurko adigoo unkamahayoon weli soo ifbixinba adogaa xijaabto afka laga aroorsho amran hooyadaaba mushii ku dhimaato allahay xaliimu garkaaga dhigayo qasiidadaasi eregadii furqaan iyo codka cabdulaahi zulfa ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii habeennimo waxaad la socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah axmed cali sheekh waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo rabbi kugu ogaa